kulanka dhamaystirka qabiil qoraalka xeerka ka hortagga iyo xakamaynta HIV/AIDS ayaa waxa soo qaban qaabisay komishanka xakamaynta AIDS-ka ee Solnak halkaasi oo loogu soo bandhigay sidii looga hortagi lahaa xanuunka loona xakameyn lahaa ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhakhaatiirta garyaqaanada hay'adaha madaxa bannaan waxa ka soo qayb galay munaasabadaasi dhakhaatiir garyaqaano hay'adaha madaxa bannaan mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladoodii runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu isugu nimaadno gabagabaynta dib u eegista xeerkan dib loogu eegayo kaasi oo aynu rajeynayno in waxyaabo badan ay iska bedeleen in muddo ah markii wax jiraba wuxuu u baahan yahay in dib loo eego oo la qaabilsiiyo waqtiga markaa taagan marka waxaan rajeynayaa hawshii soo socotay ee inta muddada ah lagu soo jiray waynu maanta u fadhinaa halkan inaynu soo gabagabayno in insha allahu tacaala si wanaagsan inoogu dhammaato waxaan rajeynayaa oo aan sidaan ku aragnay qabiil qoraalka si aad u xeel dheer baa loo lafaguray marka waxaan rajeynaynaa insha allah inay noqoto mid wadanka anfacda wax u tarta khaasatan dhibta jirta ee aad iyo aad u khusaysa dadka la nool xanuunka iyo ciddii ay khusayso iyo ciddii ay la shaqaysaba waqtiyada qaar baa waxaa jirta xataa qofka la shaqeeya lagu faquuqo iskaba daa xataa qofkii hawshan qabay marka inay noqoto dawo haddii la yidhaahdo siyaasaddaasi way noqoto siyaasad ay dawladdu ku dhaqanto way noqoto siyaasad ay dadweynuhu la socdaan way noqoto siyaasad ay hay-aduhu la socdaan si loo fuliyo marka runtii dadkii ka soo qayb qaatay ee muddada ku soo daalay ee habeen iyo dheeraad u soo jeeday runtii aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa hawl weyn baad qabateen waana idinku hambalyeynayaa waxaana rajeynayaa maanta guddiga baarlamaanka in nala fadhiya uu hogaaminayo maydhane inay ka ololayn doonaan arrintaasi haddii aan la yidhaahdo oy baarlamaanka geyn doonaan way emarsiin doonaan xeerka kaas oo noqon doona xeerkaasi oo waddanku ku dhaqmi doona haddii aan la yidhahdo oo noqon doonta siyaasad guud nuga mahad celinaynaa xildhibaanada agaasimaha hay-adda iyo shaqaalihiisa hay-adda intaba waan u mahad celinaynaa run ahaantii waa xeer aada muhiim u ah waayo waxayna daashaday xeerar siyaasadeed kanise wuxuu kow ka yahay xeerarkii baahiyaha ummadda ka turjumaya weliba kuwa nugul ee xanuunka la nool hawshu halkay ka ragaadsan tahay soomaalidu siyaasaddan bay xoogga saartaayee in baahiyaha bulshada wixii wax taraya laga shaqeeyo iyo xeerashooda ayaa muhiim ah in mar walba wixii baahiyahooga ka turjumaya ee xeerarahay taageeraan inta badanna waxay ku mashquulaan xeerar siyaasadeed iyaga taa waan ka waaninaynaa waxaana rabnaa inay dadweynuhu nagala shaqeeyaan wixii baahida ummadda wax taraya hay-addina waan uga mahad celinaynaa qabiil qoraalka iyo wax ka beddelka xeerka ay ku soo samaysay si dheerna waa la iskula lafaguri doonaa wax maanta ku dhammaanayaan ma noqon doono muddo qaadan doonaa waanad ku mahadsantihiin qabiil qoraalkaad soo diyaariseen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamaya waan soo dhaweynayaa guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee baarlamaanka somalilan ama golaha wakiilada somalilan iyo xubnaha kale ee baarlamaanka socda sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa hay-adda aan wada shaqaynta leenahay UNFPA oo saraakiishii maanta ay bartan la joogaan bahdii soo diyaarisay ee xeer beegtida ahayd ama sharci yaqaanada ahayd ee fartii ugu dambeysay ku soo qortay aqoon-yahanadii ka sii horreeyey muddada dheer ka soo shaqaynayey iyo inta maanta isku wada timida dhammaan inaynu insha allahu tacaala isha mar labaad aynu ku qabanno xeerkan qabiil qoraalka ah oo ah xeerka ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka iyo xanuun dhaliyaha HIV/AIDS-ka kaasoo runtii qarankeenu muddo 20 sanadooda aynu kula jirnay dadaal inaan xakamayno una bulshadeenna in badan gaadhin aynu dadaal badan aynugu jirnay walow sidaa haddana ahayd xeer ma jirin laakiin waxaynu ku shaqaynay siyaasaad iyo qorshayaal baynu ku shaqayn jirnay si markaa taa looga baxo oo wixii sharci loogu helo ayaa waxay noqotay in qabiil qoraalkii maanta aynu halkan isugu nimaadno annagoo doonayna marka qorshuhu ahaa in xubnaha baarlamaanka oo weliba qaybtaas arrimaha bulshada ama guddi hoosaadka arrimaha bulshada oo sidaa uu guddoomiyuhu sheegayba iyagu xoogga saara arrimaha bulshada
inay qayb ka noqdaan maanta oo inala eegaan hadhowna daba ka riixiisa ilaa intaan ka gaadhayno in la ansixiyo oo la sii daayo oo noqdo xeer dhaqangala oo la faafiyo hawshaa insha allahu tacaala waan ka wada shaqayn doonaa guddida iyo baarlamaanka si guud waan wada shaqayn doonaa